halkan waxaan ku xidhanaa sanad dugsiyeedkii dugsiga Sheekh Xasan Taani xalfadan waa xalfadii loogu talagalay ardayda kuwii kaalmo koobaad galay iyo kuwii kaalmaha labaad galay baan abaalmarintoodii ku guddoonsiinay ma sha Allah ilaahay bay noo suurtageliyay maanta inaan iskugu nimaadno dugsiga Sheekh Xasan Taani oo xalfadaasi qaaliga ah iyo ubadkeena ay yimaadaan kasakow waxa noo suurtageliyay bahda Sheekh Xasan Taani wiil iyo gabadhba Allah ka jazaaysiyo Allah cimrigoodana ha dheereeyo Allah caafimaad ku waaraan waxaan halkan anuguna balan uga qaadayaa maamulihii dugsiga tacabkooga iyo maalkooga iyo kartidoodaba ilaana qasaarin oo ubadkaasi aan ka soo saaro ubad tayo leh dhammaantood waxaan u leenahay dugsigii aad ku tabacdeen eed maalka ka bixiseen eed fikirka aad ka bixiseen ku soo dhawaada ee Sheekh Xasan Taani iskuulkan Sheekh Xasan Taani oo yacnihii iskuuladii aadka loogu baahnaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iskuulkii wakaa maanta alxamdulillah aan xafladiisii sanad dugsiyeedkiisii koowaad aan xidhayno aad iyo aad baan ugu mahadsan yihiin waxaanu leenahay waxa wanaagsan waa la isaga daydaa ilaahay baa mahadle shalay meel bannaan oo xooluhuna marmaraan bay ahayd maantana waa idinka arkaya quruxdeeda waxaan leeyahay maanta magacii wuu muuqdaa ciddii agmarasaaba waxay leedahay Sheekh Xasan Taani Soomaaliland wuxuu ku lahaa Sheekh Xasan Taani dhammaanteed wuu soo wada maray Sheekh Xasan Taani wuxuu nin cilmi leh aad wax u bartay buu ahaa dadka markuu yimaado wuxuu oran jiray waar dadka wax bara adduunyadu way iska tagi doontaa marka waxa weeye iskuulkani isaga ah waxa soo dhisay maanta ku magaclay waxa weeye reer Sheekh Xasan Taani iyo ku magaclay way mahadsan yihiin in wax kasta oo aan qabanno may suurta gasheen hadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo suurta gelin marka waxaan marka ugu horeyso u mahadnaqinaa Ilaahay inoo suurta geliyay inaan si dhib yar oo waliba aad u fudud inuu inoogu hergalo waxaan kaloon jecelnahay inaan u mahadnaqno dadkii mashruucan dhisay ee qaybta weyn ka qaatay Axmed iyo dadkii kale la qabtay ee habeenay dhalaar u taagnaa inay hergasho oo ay sameeyaan mashruucaasi inuu hergalo u taagnaa marka waxaan jecelnahay waalidiinta iyo macallimiintaba waxa kaliya ku dardaarayna sidoo uu balan qaaday maamulaha iskuulkuba inay caruurtaasi wax barashadooda macna lagu dadaalo inay ka soo baxdo caruur ummadda muslimka anfacda iyo ummadoodaba anfacdiyo waalidkoodaba aan Ilaahay ka rajeynayna wax barashada markaan u soo noqdo aanu macallin baan ahaan jiray marka waan garanayaa tayada ay wax barashadu leedahay muhiimku waxa weeye in wax barashada la tayeeyo oo ilmaha si fiican wax loo baro oo isla markaana lagu kontrolo waxa la barayaa waa muhiim iskuulkan waxaan rabnaa inay ka soo baxaan ilmo tayo leh oo deegaanka ugu tayo badan inay ka soo baxaan baan rabnaa waxaan filayaa inay macallimiinta iyo maamuluhuba ay taa ballan qaadeen ballanka inaad oofisaan ayaan ninkana idinka rabnaa. This is my first time in Somaliland. This is my first time back to my home country, to my roots, to where my mother was born, to where my father was born, to where my roots and ancestry stem from, especially the city being Dilla. And especially in the context, that city holding such a pertinent part of my life, such a pertinent part of my existence, shows where my family stems from. And with that in context, it became very necessary for my family. Kolley maanta waxaan isugu nimid xafladii xidhitaanka dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Xasan Taani oo runtii ardaydii mutaysatay kaalmaha horena jaayisad la guddoonsiin doono runtii ayna inoo soo qabanqaabiyeen bahweynta reer Sheekh Xasan Taani waxaan runtii allan ka qirayaa maalintii iskuulkan xadhiga laga jarayay reer Sheekh Xasan Taani qayb kale badan baa halkan joogtay maxamuud baa joogay xaajigii baa joogay cabdinaasir baa joogay cid badan baa joogtay inta maanta inoo joogtaana runtii baalinta hore may joogin iyaguna maanta ay nagala soo qayb galeen Fiime iyo Amaal iyo Axmed Yaasiin maanta waxaan ku rajaynaynaa waxaan dhigaynaa insha Allah afartii class ee kale Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu si dhib yar oo khayr qabto inoogu fududeeyo soo tii hore bay inoogu fududeeyay waxaana dhamaantiina wad mahadsantihiin waan insha Allah waan idin soo duceynaa anaga noo soo duceeya Ilaahayna ha inoogu fududeeyo si khayr qabta